مشاكل Soomaaliya ba shacab xamar ba maaha Soomaaliya ba dagaaladan dabada dheeraada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaaadkani waa waxaan cuqubadeedu bay ku qarxaya xuquuq dumar ka maqan ma jirtee qaribaad baa ka maqano nin reerkiisa iyo qoyskiisa rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo Somaliland iyo Soomaaliya iyo waxa arrinkaygu maaha annagu caalamka islaam wixii ku soo kordhay mashkilada baan ka hadlaynaa hanka iyagu halkaas uu jooga haddii xamar ay ka hirgasho halkan iyadoo soconaysa noogu imanaysa kan kelmad aad u kooban ayaan doonayaa maanta inaan idhaahdo shirgudoonka aqalka shacabka Soomaaliya ee xamar ku yaala ayaa war ka soo baxay argagaxle runtii argagaxle anagu dadka diinta iyo dhaqanka labadaaba ilaaliyaan nahay shirgudoonkaas gabadh kamid ah ayaan dhageystay muuqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodaysaa waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in waxaynu xataa ku afka soo marin karanaba maaha in dadka ragga iyo dumarku guurkii aynu naqaano inta laga guuro iyagu wax isu doontaan wax caalamul galbeed laga keenay ama dhaqankan galbeedka iyo gaalada laga soo waariday marka gabadhaasi waxay leedahay dadkii haddii aadna ilaalin weydaan oo iyadoo marmarsiya ka dhiganaysa diintii iyo culimadii marmarsiya ka dhiganaysa waxay leedahay waa la wada gaaloobaya oo sidana la noqonaya oo aakhirkana waxay leedahay haddaan xeerkaa jinsiga meel marin waayo muqdisho way iskaga tegaya waa arrin runtii qof kastoo islaama argagax gelinaysa oo naxdin leh arrintaasaan doonayaa maanta inaan kelmad ka idhaahdo inantaa waxaan ku odhan lahaa horta ilaahay u soo noqo ummaddani waa ummad islaama ummad waxaasi ka suuro gelayaan maaha waxaan ku xusuusin lahaa gabadh iyana wasiir ahayd oo kaa horreysay oo weliba gabadha aqoon baan u lahaa inay xeerkan keentay baarlamaankii hore laakiin laga diiday waxaan aad u hambaliyaynayaa ugu bogaadinayaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee la odhan jiray muuday oo si fiican oo diiniya oo dadnimo leh uga hadlay arrintaa hore oo isu hortaagay isaga iyo aqalkiisii hore ee shacabkii hore ee baarlamaankii horeba ay u diideen waa ku bogaadinayaa runtii Soomaalida odhan jirtay meel aar ka kacay atoor fadhiisay gabadhan maanta hadashay waxaan leeyahay annagoo weliba ku nasteexaynayna arrintaasi suuro geli mayso dad islaama baanu nahay dad dhaqan leh baanu nahay dad waxaasi ka suuro gelayaan ma nihin adiguna ka noqo adiga iyo cidda mashruuca ku soo siisay midna u suurto geli mayso taa inantaa intaasaan leeyahay saddex qolana fariimaan u dirayaayo mid waa madaxweynaha xasan sheekh dee madaxweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaalna waa ku jirtaana weji islaamiya u dhigaysaan halkanna waxaana ka socda oo tii halkii ugu dambaysay dee bal dib isugu noqdo oo arrimahan hoos u eega oo madaxweyne oo arrintaa mas-uuliyaddeedu aday ku hoos imanaysaa ee wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalkaa lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxaa leeyahay nin baa beri lagu yidhi inantii heblaa kuu soo heestay wallaahi wuxuu yidhi inantaa ii heestay lama yaabaniye ragga u heehaa lahaa ayaan la yaabanahay buu yidhi golihiina shacabka waa wada qabtaan arrintan waa shirgudoonkiinii waxaan samaynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dembigani ku dhacaya arrintaa baarlamaanow ama golaha shacabkow oo golihii idinka horreeyey sidaa aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tegaye ceeb ha kaga teginay qolada saddexaad aan la hadlayna waa Puntland oo inantani ka soo jeedo dee reer Puntlandow idinka lafdiinu arrintu way soo galaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexadeedu way soo galaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama marka dumarka xuquuqdooda meel baa lagaga dhacaya marka waxa la shubayo dhaqanka Soomaalida dumarku waa cidda ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta intaasoo taariikhood baa dumarku leeyihiin inan sidaa loo eegay baa laba reer isugu rogmadaan
soomaalida waxaaba lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay bal maamaada xaggaad ka dhaafi gabadhay markaad leedahay xuquuq baa iga maqan nin waa maxay baa layidhi gebigiisuba waa inta gabadh ka soo hadhay baa layidhi waa hambo gabadh ka soo hadhay dhaqanka soomaalida xuquuq dumar ka maqani ma jirtee qarribaad baa ka maqanoo nin reerkiisi iyo qoyskiisii rogmaday ayaa doonaya inuu inagana ina rogo waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaarankaygu waxa weeye waxaa ka noqo kuu suurtogeli mayso waxaan ceeb hayna kala tegi maysad haddaad kusii adkaysato adiga taasaan ku idhi madaxweynahana waxaan leeyahay madaxweynow arrintaa wax ka qabo oo soo gacan geli shacabka xamarra waxaan leeyahay dee mashaakilaadkan idinku qarxayaa arkaysaan waxaanubay ka bilaabmaya mashaakila soomaaliyaba shacab xamarba maaha soomaaliyaba dagaaladan dabada dheeraada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaadkani waa waxaan cuqubadeedunba idinku qarxaya haddii wax laga qaban waayo intaas baan doonayaa maanta inaan halkaa ka idhaahdo kooban khilaaf baa ka jira siyaasiya waxaan maqlayay gaalaa la sugaya islaamka waxaa la faray haddaa isqabataan kitaabka iyo sunnaha u noqda bal islaamku markuu idhahdo gaalaan sugaya khilaafkayga xalilaysa bal ka waran islaamnimadiisi maxay noqonaysaa taas dadweynahaan u dhaafayaa intaasaa hadalkaygu maanta ku kooban yahay waayo waxaan uga hadlayaa somalilan iyo soomaaliya iyo waxaa arrinkaygu maaha annagu caalamulislaam wixii ku soo kordhay mashkilada baanu ka hadlaynaa hanka iyagoo halkaasuu joogaa haddii xamar ay ka hirgasho halkana iyadoo soconaysa noogu imanaysa waayo bad iyo buuritoona inaguma kala gudbanaa marka halkeeda inaanu dagaalka ugu geyno wax kaga qabanno ayaa hadalkaygu daaran yahay oo aanaan sugin intay annaga noo imanayso hadalkaygu waa sidaa halkanna waxyaabaha ka jira halkanna waa ka dagaalamaynaa iyadana markeeda ayaanu haddii ilahay ka dhiga sidan oo kale uga hawlgelayna laakiin maanta hadalku wuxuu khuseeyaa arrinta xamar ka socota ee gabadhaasi soo bandhigtay iyo inta kale ee aamusane hoosta kala socota ee waa mashruuco waanu ognaho reer galbeedkaa bixiyo dhaqaala lagu riixayaae hungurigu halkaa la galay waxaana ogaataan qof walba maalmo yar baad noolaanaysaa waxaana kaa dambaysaa camalkaaga mooye halkaan hiil casa camalkaaga mooye halkaan ciirsi kala joogin nin walba qof walba godkaa yar baa kaa dambeeya iyo wixii adigu aad u shaqaysato